soo kac adigoo xog ogaala Mareykanka ayaa qaaday tallaabo sare u qaadaysa xiisadda Iran kadib markii uu xayiraad saaray dhammaan dekedaha Iran oo uu ku sheegay inaysan jiri karin wax maraakiib ah oo tagi karta ama ka soo bixi karta iyadoo ujeedadu ay tahay in la cadaadiyo Iran oo diiday dhammaan shuruudihii Mareykanka intii lagu guda jiray wadahadaladii fashilmay ee Pakistan. Go'aankan xayiraadda ee dekedaha Iran oo la sheegay inuu dhaqangeli doono 10ka subaxnimo Isniinta maanta ayaa go'doomin gelin doona Iran, taa oo dhalin karta inay Iran qaado tallaabooyin ay ugu jawaabayso oo noqon karta in iyadana si la mid ah ay xayiraad ku soo rogto dekedaha Bariga Dhexe, iyadoo go'aankan kaliya uusan caqabad ku noqon doonin Iran ee uu saameyntiisa ay gaari doonto dunida oo dhan maadaama ay dhalinayso qiimo koror ku yimaada qiimaha shidaalka ee caalamka. Arrintan oo ka dhigan inaysan jirin inay cidna ka faa'iidi doonin isku dayga uu Mareykanka ku doonayo inuu dekedaha Iran ku xayiro. Sida ay sheegtay Fox News, dalabkii ugu dambeeyay ee madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka DJ Vance oo u gudbiyay wafdiga Iran ee Islamabad ka hor burburkii wadahadalada nabadda waxa uu ka koobnaa shuruudahan: in la joojiyo dhammaan howlaha hodminta uranium-ka Iran, in la burburiyo dhammaan xarumaha waaweyn ee lagu horumariyo uranium-ka Iran, in dib loo soo celiyo uranium-ka heerkiisu uu sareeyo, in la aqbalo qaab ballaaran oo nabad, amni iyo dejin xiisadeed oo ay ku jiraan xulafada gobolka, inay Iran joojiso maalgelinta kooxaha ay Iran taageerto ee gobolka, in marinbiyoodka Hormuz si buuxda loo furo iyadoo aanan wax lacag ah laga qaadi karin maraakiibta maraysa halkaa, balse soo jeedintii way diiday Iran waxa ayna ku adkaysatay inay qaadayso ama ay wadato shuruudaheedii hore.